السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha meel kastaa joogtaan. waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan. alxamdulilah anaga waan fiicannahay. ilaahay mahadorana u sugnaatay. allahuma laka alxamdu walaka shukr. intaasi ka bacdi soo dhawaada. videogan maanta waxaan idinla wadaagi doonaa. waxaan duubay videoga maalintii ramadaan ka horeysay fridaydii. video wuxuu noqon doonaa goos ah biidnillah. xaggan waxaan ku sameysanayaa sambuusaha maanta waxaan sameynayaa fiilinkiisan sameynayay wixii la gelin lahaa howliyadiisii, laakiin waxaan sameeyey khamiistii iska sameystay. aniga waxaan iska ahay mataqaanaa reer tabareed hooyo baby yar iska haysata ahay, marka hal mar waxa dhan misla wada sameyn karin. so waxaan sameeyey maalintii khamiista ahayd waxaa iska soo sameeyey howliyadii baxsaday video kamaan duubin. maanta jimcana waxaan sameynayay howliyadii hilibkiian soo gatay. hilibkii iyo waxa basashii wixii aan isku sameyn doonaa biidnillah. marka ilmo yar haysatid waxaa waaye waa iska yara adag tahay wax kasta inaad sameysid maasha allah hal mar. maxaa idinla wadaagi waa mashiintan arkeysiin. mashiintan maasha allah lagama sheekeyn kara. mashiintan waxay iiga timaaday tiktok mataqaana alaabay iisoo diraan marka xayeysiin ahaan aan dadku waxayeysiiyo. marka maasha allah aaday u fiican tahay, lagama sheekeyn kara. amazonka iyo meelahaasi waa ka heleysaa umaleyn. haddaa rabtid basasha ugu maarmeysaa. ani basasha markay noqoto basal jarjarista waxaa ahay dadka ka oheysiisa basasha markaan jarjaraa indhahayga iyadoo ilintaa uga qulqulees unba ku dhameeya. laakiin bahashan sidaa u helay maasha allah hayawaan iyo howl fududeynaya. hal mar leesaa u gelinaya qaac ka siinaya. marka waxaan rajeynaa qofka haddaa rabtid amazonka meelahaas waa ka heleysaa maasha allah. beebiyadeyda videoga la duuba haysa iska ciyaareysa. alxamdulilah ilaahay noo daayo. marka basashaa soo jarjaraneynaa. 2 basal ku daraan sambuuska. hilib iyo basal bas ku sameeya, baradho iyo kuma daro. basashaan 6 xabaan isticmaali doonaa iyo mida oo maxay ahaydey spring onion ama basasha caleenta had arki doontiin aan ku darsaneynaa biidnillah. soo dhawaada idin leeyahay walaalaha. maasha allah videogayga u dambeeyay xoogaa dad fiican ii daawaday. aada u mahadsantahay dadkaasi kamid tahay. waxaan rajeynayaa kana inuu meel fiican ii gaari doono. youtube-kan wax badan aan ka maqnaayo waxaa waaye videoyadeeda mana soconayaan. marmar waxaa isdhaha maxaa ugu daalay ma iska daysid. haddana waxaan dhahaa hal qof hadduu wax kaa faa'iido bishaaro intaasaa maasha allah ma ogtahay. ana haddaa wax ka faa'iido waa alxamdulilah. nimco lagu daro waayo. marka waa waxaan jeclahay inaan sameeyo. sanado badan aan soo waday. sanado waa iskiiga maqnaa. sanado waa kusoo noqon. marka waxaan idinku codsanayaa soo like-tana ii saara, subscribe-tana taabta, saxiibtiin ula share gareeya. markaas basashan basasha caadigun baan ku jarjaran jiray awalkii hore, laakiin maanta waxaan isdhahay bal ku fiiri basasha kale inaad ku jarjari kartid. maasha allah siyaa caadi ahayna iigu jarjarta walaahi lagama sheekeyn karo. aada ugu haystaa ku iri ramadaanka xaal sidee tihiin. ramadaanka intuu idiin marayaa. marka video waan idiin soo gaaraya. maanta ramadaan waxaa waaye maalintii 3aad. waxaa ku dhex daawan doontaa videogan maalintii 1aad, maalintii ka horeysay, maalintii 1aad, maalintii 2aad. waxyaalo kamidaan soo duubay biidnillah. maasha allah sambuuskii oo kusoo dhameeyey buuxiskiisa waqti badan ka bacdi waxaa sameeyey qiyaas ilaa 50 xabo camal.
ما شاء الله tobanka hore camal waa kaga qeyr qabayaa marka sameyskiisa waa kaga nasanayaa. Meeshan waxaan sameynayaa idin la wadaagi rabaa waxa waaye burger ku sameyn rabaa, beef burger ku sameyn rabaa. Ciyaalka aad ay u jecel yihiin, especially masha Allah my kids they love it. Marka waxaan rabaa waxyaalahan ka sameynayaa waana adag gurigaada ku sameysanayo, waa healthy. Banaanka cuntada laga soo iibinayo waxay ugu fiican tahay mataqaana adiga sameystay, waxaa ku darsataa ogtahay saliid badan ma lahan, cusbo badan ma lahan. Marka masha Allah waxaa ka sameynaya waxaa waaye hilib shiishiid, hilibka lo'da shiidan isticmaalahaya. Waxaa ku daray cusbo yar, wax yar oo maraq digaag ah, huruudka shiidan, maxay ahayd toonka shiidan, mixed herbs, waxyaalo la isku shiiday iyo xawaajiyada kala caadigan oo ku darsan kartaa. Inta badan xawaajiye kuma daro, mararka qaar cusbo iyo waxaa ku daraa bas filfil. Marka masha Allah waxaa sameynaya gacanta saa ugu kuusaya, saa markaa u dhigo bahashaana isticmaalaa. Bahashaana iyadana sidoo kale tiktok ay kor iga timid, waxay wadatay bahal mataqaana saa loo dhex gelinayo lagu push gareynayo. Waay guriga iga dhex dhuntay. Marka hadda gacantayda isticmaalaya, iyadana waa saas ugu riixaya. Laakiin ma u baahanid haddaa haynin qasab ma ahan, waxaa isticmaali kartaa weel aad dabadiisa ugu riixi kartaa ama gacantaada ku simi kartaa biidhnillah. Ani waxaan sameeyay sidan markaan u sameeyo waa badiyaa inta badan. Kabacdi maalintaas inta u sameeyo maahan inta kala bac inta ku xiro. Waxaan sameynaa freezer ka gelina isbuuca dambe isagoo ku diyaarsan hilibkiisa u jarjartay oo ku fidsan. Soo baxsane birto saliid oo marisay un basa u saaraysa. Masha Allah wuuna karaya, dab yar lagu karinayaa, dab weyn xoog hada hore u saarto oo gubanaya, hilibkiina ma karsana. Marka masha Allah inta saa u sameysid ayaa freezer-ka gashan kartaa, maalinba inta rabtida ugu soo saaraysa sifa ugu sameysid. Marka masha Allah sida arkaysaan birta saliida saa ugu mariyay, wax badan ma saarin. Kabacdi waa saaraysaa bas hadaa rabtid dabool waa saari kartaa hadaa isleedahay hilibka ma karsano, laakiin wuu karsan yahay, wuu karayaa masha Allah. Birta baa saa u saaraysaa markuu xagga hoose ka soo koro wuu soo cadaanayaa. Hadaa istiraadid birta way sii qalaleysaa, wax yar oo saliid ku dhibcinaysaa. Hadaa doontidna saliid inta ka buuxisid waa fry gareyn kartaa, labadaba waa lagu sameyn karaa. Marka masha Allah wakaas saas u karayaa masha Allah. Xagga sare waxaan ka saari doonaa marka cheese-ka mataqaana burger-da la saaro ama cheese-ka caadiga inta saa u xuqdid ayaa dul saaran kartaa qofba choice-kiisa. Hadaa rabtidna kuma badaraysid, cheese-kaas aan isticmaalaya aniga. Waa ready-ga midka ready-ga oo burger-ka looga tiragalay. Kabacdi waaba noo diyaar. Burka oo burger-kan waxaa sameyn kartaa birta saa u saaraa sifa mataqaana dhacaankii hilibka waxaasi ugu baxo ayna u noqoto crispy. Masha Allah cuntada ilmaha aad ay u jecel yihiin, ilmaha maxay tahay qof kasta jecel masha Allah. Marka wakaasa tan markaa dhameeyo waa bixeena ka baxno maanta cashira lahaa masjidka oo mataqaanta axadi waaya qaybtan yes waa maalintii labaad ramadaanka shalayto. Marka masjidka aadayna cashira ku leenahay biidhnillah. Soo dhawaada idin leeyahay mar labaad. Waxaan rajeynayaa video-gan waxaan ka faa'iiday. Ilaahay naga yeelo kuwii wax kala faa'iideysta. Anigana waxay ka faa'iidaan, adinkana waxay idinka faa'iida biidhnillah. Ramadaan kariim. Ramadaankan Ilaahay barakadiisa iyo khayrkiisa hayna siiyo, kuwii ka faa'iideysta Ilaahay haynaga dhigo. Allahumma aamiin. Marka wakaasa burger-keen saas uu nooga soo baxa arkaysaan. Masha Allah maxaa ugu baahan tahay cunto banaanka laga soo iibiyay ama qof hadaa hor dhigtid ma qofkaas is dhahaya adaa soo sameeyay inaad soo iibiso un baa maleena. Dadku waxay ku qancaan wax cuntada banaanka laga soo iibiyay inta badan. Kabacdi ilmihi qaada soo siistay waa iska soo fariistay waa daalay. Marka ilmaha meeshan TV iskala daawanaya. Masha Allah soo dhawaada. Xaaladiina ka waram adinka wataas aniga idin tusaya Ramadaan maanta waa maalintii labaad. Masha Allah kadib waa iska soo baxnay masjidka aadnay. aada u mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.